ugu dambeyntiina dowladda Turkiga ayaa sheegtay in meel wanaagsan ay marayaan wada hadallada u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay in talaabooyinka kalsooni dhisidda ee u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ay marayaan meel wanaagsan. Talaabooyinka lagu dhisayo kalsoonida sida isdhaafsiga maxaabiista dagaalka ayaa sidoo kale si wanaagsan u socday, waxaana sidoo kale dhexdhexaadinayay ilaa dhamaadkaas, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. Cavusoglu oo soo xiganaya kulamadii ayaa wufuudda Ukraine iyo Ruushka ku yeesheen magaalooyinka Antalya iyo Istanbul ee dalka Turkiga horaantii sanadkan, ayaa sheegay in wax waliba ay isbedeleen isla markaana aysan ahayn wax fudud in xal waara laga gaaro Ukraine iyo Ruushka dagaalka u dhaxeeya. qodobka ayaa u dambeeyay guud ahaan daawadayaal warbixii gudaha iyo daafaca caalamka laga soo gaaray anigoo Abdi Fataax Daruur ayaa idin la socodsiinaya studio dhexe ee Muqdisho ayuu warkaasi toos u idin kaga imaanaya kan iyo war xiga intayna dib ugu kulmi doono nabad iyo warsan.